وهجاك داوديال قيبه دحاء برنامج كان وقتلا قلي عيدة أيان وكجودة جرنا مرتي كلا دوان أي برنامج كان قلق قليسة أو استوديها ديار روجوة وحنو هاتن تعلها هنا نسود وينه آسيا عفشر أو وحبضا عاد كوغان دونتان سود واس عيد مبارك بان كلنا وهجاك داوديال مركان وحان نقصو بيرتي آسيا أبشر أو وريه مدح بنان كانت ترسن قدقة فلنتا أي أروك صحفين تبنتلان ماب آسيو انتي ورباهينتا أي كسو شقينيسي وحا أي آد وحيل دايريد أو أي برنامج كدياريسا أرمها قويسكا إنكسو سيدا أدركتان أي تهي قبرير ولي بصيرت أنا نكهر دعيو ولي أن رير سمين هادنا وحي وحبدان أي كوك تهي أو أي دراسة كسبيسا أرمها قويسكا آسيا مركو هرسودو مناسبة دعيد كعدة أتشعشها إنها تسلانتو مالينكاغو سيدو أها USBS وحا أدوراني سبا waan dhawahay waana i duqaysay wixii aan oran lahaa uu igu noqday munaasabada ciida aad ay igu weyn tahay maanta gaar ahaan inaan idinko SBS aan kala qayb qaato agaasime Faisal Khalifi dhamaan asxaabta idinku ugu horeysaan waan salaamaya umada muslimiinta ugu badan waan salaamaya marka dad duqayseen waxa sima jireen waayahay aad baad mahadsan tahay Asiya waxaan rajaynayaa dhamaan dadka aad salaantay oo saaxiibadii shaqo wadaagaha iyo qoyskaba isugu jira inay salaanta aad u gaartay maxaa lahaa macid bay Asiya waxaad ka baaraysaan indha ka soo socdo male waayahay Asiya markaan barnaamijka u soo laabano waxa aad program ka diyaarisa oo inta badan barnaamijyada aad xoog ku saartaa arrimaha qoyska maanta waa maalin ciida dadka khubarada ah ee wax ka yiraahdo arrimaha qoyska ama daraasadaha ka sameeya maxaad u malayn lahayd maanta oo kale inay talooyin ku siin lahaayeen qoysaska si ay munaasabadan iyo farxadeeda si wada jir uga faa'iideystaan faadumay waa su'aal aad u qurux badan marka aynu dadka khubarada ah leenahay waxaad moodaa inaynu leenahay waxaan ku tiirsanahay waxa filosofiyiinta iyo dadka cilmi nafsiga ku takhasusay iyo maxaan ku ilaahdaaye dhakhaatiirta iyo dawladda waxay qoreen laakiin hadaynu nahay ummad islaam ah wax walba hore loo qorsheeyay kitaabkeena ayaa meel saaray sunnaheena ayaa meel saaray wax badan bay diinteenu ka hadashay iyo tiinkii xaqiisii meel baa la saaray oo ay ugu horeyso in madaxa loo salaaxo ummadii maxaan ku ilaahdaaye muslimiinta mid walba halkii uu kala lahaa walaalkiisa deriska ama qofka dhiban ee deriskiisa ah ama ay qaraabada yihiin xaqii uu ku lahaa meel buu saaran yahay ma aha wax aynu dad khubaraa u dabagelayno muslimiinta waxa ugu horeysa ciidda horta waa farxad laakiin waxa ay muhiimada u tahay ama lagu qeexo ee dhabta ah waxa weeye in la cusboonaysiiyo xiriirka bini aadanimo waa munaasabad insaani ah marka laga yimaado munaasabad farxadeed xiriirka maxaan ku ilaahdaaye qoyska iyo qaraabada ay la leeyihiin khubarada laftirkooda haddii aynu wax ka yara jaleecniyaga laftirkooda aynaan ka tagin maadaama su-aashana saad igu soo qaadatay ay tahay waxa ugu weyn ay ku taliyaan waa marka ugu horeysa in nafsad ahaan waalidku ama ha ahaado hooyo kaligeeda ama ha ahaado hooyo iyo aabbo wada jira waxa haystaan waxba haysan ay nafsiyan isu diyaariyaan sida ilmahooda iyo qoyskooda uga qayb qaadan lahaayeen isu fahmi lahaayeen taagtooda iyo timartooda maxaan ku ilaahdaaye iyagoo isfahansan ay isula heshiis uga wada gali lahaayeen maalintaas farxadda kale aadaysa uga qayb qaadanayaan waa tahay aad baad mahadsantahay Asiya sida laga dhawaajiyay walaalada Faadimo iyo Khadra ay ka dhawaajiyeen waxaad ka mid tahay dadka inta badan u dhaqaaqa dadka danyarta iyadoo aynu ognahay in adduunyada aynu ku noolnahay ilaah ka xukumo qof kasta wuxuu irsaaqada iyo qofka ilaahay ku umay waxa jira qoysas ballaaran oo iyagu aan awoodin duruufaha dhaqaale maalinta ciidka inay kala qayb galaan dadka faraxsan dadkaas warbixinta guud ah u direyso iyo talada gaarka siinaysa maxay dadka waxaan leeyahay haddii ay qoys yihiin haddii ay beel yihiin haddii ay magaalo yihiin kaligiin ma tihiin dadka adduunkan dushiisa ku dhiban waxaa jira haddii aad adigu maanta waxaad cunto aadan haysan in aad kari karayso inaad deriskaaga kugu xiga wax weydiisato aad deyn doonato balse ay jirin dad intaasba laga yaabo inayna samayn karin dad barakac ah dad maxaan ku ilaahdaaye laga yaabo laftirkooda inay xubnahoodii qaar ayna lahayn mar walba ha niyeystaan in ay eegaan kuwa ka hooseeya iskuna dayaan in ay farxadooda dhoola cadeyn baa ugu yare iyo inay hab isi siiyaan oo kalmad raxmad la isu sheegaan inta
ay maxaan ku dhahdaa ay kaga qayb qaataan farxadooda iyagoon ilaawan isku tiirsanaantii qoyska ugu horeyso xaasku oo xaaskii markii ay iyada ugu horeysa farxadda ciidda lagu sheegayo markii reerku qoys yihiin waayo hooyadii haddii aabihii ay la maxaan ku dhahdaa ay la wadaagto fikirkeedii kadibna xaaladiisii dhaqaale ay isla baalansi gareeyaan oo ay maxaan ku dhahdaa wax uu ninkeedu jeebkiisu yahay ay ku xisaabtanto ilmihiina iyagoo wada jira ay u wada sheegaan wixii waxba kama dhinaanayaan marka farxadda iyada ugu horeysa guriga ay subaxii u kacdo ilmihiyo aadaabtii iyo maxaan ku dhahay salaadii farxadii sadaqadii laga wada qayb qaato unbay ku eg tahay marka iyaga waxaan leeyahay marnaba ha niyad jabina waayo waxaa jira dad idinka dhiban ciidana waa maalin farxadeed dhoola cadeyntoona aad baad umahadsan tahay mar kale ciid wanaagsan baan ku leeyahay horeyna waa loo sheegayo waxaa la yidhi aasiyo dee marka hore malaa anaga kugu xamaninay laakiin dadkiina waan la wadaagin aasiyo weli waa dhalinyaro weli maaragtay dee may gaadhin inay qoys ay dhisan ay maaragtay daadihiso oo arrimihii qoyska laftigooda ay sii dhex gasho sidoo kale waxaa jira dad badan oo waliba dadka Soomaaliyeed markii si loogu fiiriyo dad badan oo kali u nool oo caruurta ama aabba kaligiisa caruurtiisa kursanay ha ahaado ama hooyo ninkii qabay ay kala tageen ama uu ka dhintay Allah u naxariisto inta dhimatay ayaa jira bal markii xaalad noocaas oo kale ay jirto oo dumarkii kali ku noqdaan tusaale dumarka oo kale waa ka nugul yihiin ragga markii si loo fiiriyo xaaladaha noocaas oo kale marka halka tahay way ka adkaysi aad xaaladaha noocaas oo kale markii de khubarooyin baa jira arrimahan qoyska ku xildheer hooyadan ilmaha kaligeed fursanayaan maxaa lagu xaalayn karaa in ilmuhuna sidoo ku kori lahaa tusaale maalmahan farxadda ciidda oo kale maalinta kale qaybtan bal taalifkeeda inaad dadka u bayaamisid ayaan jeclaan lahaa aad baad mahadsantahay khadra su-aashaas laba dhinacba way eegaysaa marka ugu horeysa si shakhsiyana bal qofkii keligii ilmaha korsanayay muxuu qaban karaa way tahay marna waxay tahay mujtamacii baad isku qaado bal maxaa kaga aadan oo lagu xalin karaa way tahay ta hore haddii aynu ka horeyno aniga waliba kasii hordhacayo oo waxaad tiri horta qoysna kama maqna qoys waa keena ku barbaarnay aniga si gaar su-aasha i weydiisay aad bay ii taabanaysaa waayo ana uurka ku jira hooyaday aabahay kala tageen waxyaaba iyagu farxadda badnaa oo aanan weli hooyaday ilaawin ilaa iyo hadda anoo 5 jir waxay ahayd iyadoo shaqo haynin markii bil Ramadaan dhalatay in ay shaqo bilowday say kaliya ii iidsiiso ilaanka iyo iideey waxa maan ilaawin waxyaabahana ku barbaarin kara ilmahu inuu mid hore u socdo noqdo hooyadii u dareemayso iminka dadka danyarta ma sha Allah danyarka qoysaska shakhsi ahaan haddii aan su-aashaadi usoo noqdo khadraa hooyada waxaa lagu caalamka markii la isku dardaray wax badan laga qoray wax badan risijiyo laga sameeyay inuu baaris lagu sameeyay waxa la ogaaday inay tahay shaqada ugu weyn ugu adag dunida ka jirta hooyo kaliya ee korsata waayo tii aabaha u taala oo la isla ogaa haddana tii hooyanimada u taala marka si shakhsi ah hooyadaas waa inay iyada laftirkeedu ay maxaan ku ilaahdaaye nafsiyan isu diyaariso in iyadu wixii ay qaban lahayd ee ku aadanaataan ee tamarba iyadu maxay ahayd marka hore ku dhaqaaqdo waxay kale tu weydiisan kartaa caawimaad ehelkeeda iyo qoyskeeda waliba dadka ka nasiib badannahay Soomaaliya hadii gabadha ehelka qaraabo leedahay hooyada aan ilmaha lahayn badanaa dadkan dunida ama single motherka waxaa loo yaqaanaa hooyo dhasha ilmaha iyadoo aan aabla aan dhashay laakiin uu tan ka duwanta waa hooyo lagu qoray oo marka aabihi baa meesha soo galay inuu joogo adeerkii abtiga u naxaya baa jooga laftirkiisu waxa dhan baa laga yaabaa gabadha in ay ka hesho kaalmo ka hesho marka tan dawladda markaan u imaado ama khubaradu qaabkan kala mid tahay loo talinayaan dawlad hadii ay maxay ahayd ay tahay dawlad dadkeeda ka warhaysa mujtamac hadii mujtamac dadkiisa ka warhaya adigoo khadra hadii aad ladan tahay saygaagi ku joogo adiguna aad ladan tahay qoyska kugu xiga maalinta iyada wad kala qayb qaadan kartaa ee aan u joogo waan kaxayn karaysaa hadii saa la isu wada kaxeeyo maxaan ku ilaahdaaye la wada wadaago farxad heerka kala kaxeeyo la wadaago maxaan ku ilaahdaaye macmacaankii la sameeyay ciidul ulxadi la qalay cidna ma baahanayso maalinta waana fadliga ay leedahay maalinta ciida had baad u mahadsan tahay Aasiyo waa ku fasaxaynaa waxaan rajaynayaa barnaamijkan iyo qaar kaleba kuma soo koobi karno arrinkan waxay noqonaysaa inaan munaasabado gaar ah iyo barnaamijyo gaar ah aan kaga hadalno
waayahay waxaan jeclaan lahaa su'aasha ugu dambeysay inaan ku weydiiyo waxaan aniga saaxiibadayba ku soo celcelinay oo xusnay inaad weli gabar dhalinyaro tahay dad badan baa laga yaabaa inay isweydiinayaan sababta aad u doorbiday inaad wax ka diyaariso barnaamijyada noocaana sideese xog badan adigoo aan xeerada gunteeda taaban u ogaan kartaa oo loogu kalsoonaan karaa casharada aad ka bixiso arrimaha qoyska su'aal aad u wanaagsan weeyaan faaduusaan hore u sheegay aniga victimka ahaa ama qofka dhibaatadaasi gaartay ahaa waa laga yaabaa dad badan oo ila midina inay jiraan walo si qoysaska Soomaalidu ay u badan yihiin waqti badan ma haysan laakiin hadaan taariikhda dib u yara raaco iskuulka xilliga aan dhiganay baan bilaabay inaan qoyska wax ka akhriyo maaha wax igu soo booday jaamacadda markii aan dhameeyay dhowr bilood baa u dhaxaysay markii aan ku biiray telefishinka SBC Boosaaso xaruntiisu ku taala isla markaas 2 bilood aan qoyska hore ka qabtay dad badan baa ku tanaaday ilaa ay al'aanka telefoon dhacay inaad maqlayseen baa laga yaabaa qoysaska ugu horeeyay aan xaliyay oo jigjiga degan dhibaatadooda ayaa soo wacayay 2 sano ilaa hadda aan xiriir leenahay xeerada gunteeda wali ma taaban laakiin waa ku rajoweyna wadadii baan waayahay aad bay u mahadsan tahay aasiyo daawadayaal waxay ka mid ahayd martida aanu idiin soo xulnay inay barnaamijkan idin kala qayb galaan xog badanna aan ku tuhmaynay mar kale aasiyo way mahadsan tahay markaan waxaan jecelahay inaanu jalleecno dhinaca farsamada hees ayaan ku nasanaynaa waxaan soo qabanaynaa fanaanada Kinjama